horaantii toddobaadkan waxaa baraha bulshada ku faafay muuqaal ay barteeda tiktok soo gelisay yaasmiin kamaal oo ka mid ah gabdhaha isticmaala aaladdan. waxa ay bulshada la wadaagtay muuqaal aysan filanayn inuu beddeli doono mustaqbal mugdi ahaa oo ay wajahaysay gabar da'yar ah oo ka mid ah carruurta soo koraya ee qaba baahiyaha gaarka ah. wallaahi horta saa moodayay iyo say noqotay labay kala tahay. waxaan isla waxa waayi doontaa qofku caawiyo xitaa maamada ma wareysan maalintaas lambarkeeda xitaa kuma soo qorin waa cabsanay. waxaa isla hadee lagaagama baran caawinaad inaad dadka caawisid inaad waxyaalaha noocaas soo bandhigtid lagaagama baran ama gabadha yarta hami been niyad u gelisa oo tirada lagu caawinayo Soomaali waa ku caawinayso fiidiyoyaasha soo dhig waxaan isla amide lagu caaya lagu dacaydeeya sa ogid cabsi ogeed 3 cisho fiidiyowga waa haystay maalinta afraad shalay ahayd ba waxaan istiraaday go'aan qaado soo dhig bas laakiin ilaaba ma hadda iskale oo de fiidiyowga u qarxay gabadha qof kasta soo raadinayo idinka xitaa waa imaadeen idinkana aad iyo aad u mahadsantihiin. waxa waaye qof u dir fiidiyowgan qof kasta u dir follow soo dhig waay waxaan istiraaday adiga bal isku day oo soo dhig page-kayga waa soo dhigay inkastoo hadda gabar magac leh aan ahay haddana de dadka qaar kood moogtahay waxay indhooda ku arkaan bay caawiyaan inay mataqaana been u sheegeen miyay moodeen ma aqaan haddana waxaan istiraaday bal adiga is dhiirigeli gabadhan soo dhig bas dadkii waxaa arkay iyaga dhan dhahayaan lambarkeeda noo sheeg xagee kala xiriirnaa. wallaahi horta saa moodayay iyo say noqotay labay kala tahay. waxaan halkan ugu mahad celinaa gudoomiyaha degmada Dharkeenley Yuusuf Xunduhey kaasoo oo kasoo baaqiliyay markuu arkay muuqaalka Sumayo taasoo ah xilli kuleel ah oo waliba iyadoo naafaa socoto waliba dhahayso in badan ay odaha gacanta iga mudmuday isla markii baaqaas uu ka soo raaciyay asoo aniga iyo wakiilinayo oo igu dhahay Sumayo waxaad u iibinaysaa kursi. Sumayna waxaa rajaynaa maanta nolol u bilaabatay waxbarasho leh oo gaari leh oo wax walba leh. sidoo kale waxaa halkan ka sheegay gudoomiyaha degmada Dharkeenley wuxuu kaloo ballan qaaday in Sumayo iyo familkeeda oo bil walba raashinka isticmaalaan ee idaankooda oo asiga bixinayo. Ilays Academy waxay siinaysaa deeq waxbarasho. Ilays Academy waxaan isleeyahay hadda waxaan u bilaabi doonaa kulay 12 sano jirta gabadha wali iskool ma aysan dhigan waxbarasho hadda ugu horeysa ha ahaato Qur'aan ama ha ahaato maadi labadaba. marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu noo fududeeyo in aan waxbarashada soo gaarsiino heer fiican. waxaan ognahay dabcan inay jiraan ilmo kumanaan boqolaal ah oo sidoo kale ta ah oo wiilal leh gabdho leh oo xaafadaha aan ka soo bixin. mararka qaarkood wiilasha curyaanka waa la arkaa laakiin gabdhaha curyaanka ah lama arko oo naafada ah lama arko. si bay u qarsoon yihiin dhibkoodana iyaga isku qaba. maanta farxaday lama koobi karo ilaah baa ku mahadsan ma sha Allah gabadhay gaarabay haysataa maamulaha iskuulka Ilays iyo gudoomiyaha Dharkeenley ma sha Allah si caadahayna ii caawiyeen ilaahay fur raxiimka ajir xasanaad Allah ka siiyo. marka alxamdulillah rabbil caalamiin gabadhay waxbarashadu waa la ballan qaaday oo waxbarasho free ah iskuulka Ilays. marka alxamdulillah rabbil caalamiin gudoomiyaha Dharkeenley waxbarayo ilmahaada maxaa la jiray raashinkooda iyo lacagtooda idaalkooda anaa ka ballan qaaday u yiri jazakallahu khayran. ilaah baa ku mahadsan ka soo kooyay ka ku mahadsan maanta farxaday lama koobi karo ilaahay ajir xasanaad ka siiyo maanta alxamdulillah.